markaan ixtifaalka nabiga sugna ogow Soomaaliya meel looga banaan baxay ixtifaalka nabiga Gurceel ugu horeysay awal Madiina magaaladii ugu horeeyay loo soo banaan baxay ixtifaalka nabiga Gurceel ahayd ka bacdi magaalooyinka kala Muqdisho iyo sanawaadka dambe ugu daysadeen munaasabadan oo lagu weyninayay dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka Nuurul Iimaan ee degmada Gurceel waxaana xafladan qiimaha badan soo qaban qaabiyay ardada iyo macallimiinta iskuulka Nuurul Iimaan waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada Gurceel oo ugu horeeyay agaasimaha arrimaha bulshada Said Cali Gamuure iyo waliba agaasimaha qorsheynta degmada Xasan Mahdi Geedi culumadiin waalidiin maamulka iskuulka iyo marti sharaf kale lagu casuumay xafladan ugu horeyn ardada iskuulka ayaa goobta ka soo jeediyay naba amaano iyo waliba siirada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee ku digriya xabiibkeen hasiqaan yahuudiyo ibliiskuna ha sii dido ha ka sii daraanduul sayidkeena aan rabin bal salaama nabigeen ku saliya rasuulkeen sallallahu alayhi wasallam suubanahu subaxdu ifkisaa u soo baxay saawiye xumaanaha xaasidkiina sii guur dunidana sareediyo leersamada ka hilaac malaayiga samaan wada soo dhaweyn diyaar u ah safar dheer ka weydimid ha sugaan xabiibkeen sallallahu alayhi wasallam kalku saa u soo baxay cirku saa u eego dhulka wada iftiimo soo dhaweeyay nabigeen sallallahu alayhi wasallam ilaa socodku muu dhibin hadalkan dhawaaq saxa sarbeebtii aqliga kala sooc kalsagna ku soconaa asagoo saqiiri markuu soofsho xoolaha subaxdaas malaayigi sidargiisa jeexo saqwiyo xumaanaha sidargo surimada ibliis dago si yar looga soo qabay lagu sayri bi dahab samsamkiina lagu meer xigmadii la sii qalbi oo dadka uga sareyn karo subhaankana ku caabudo iimaanka ka sii daran ilaahay ku sii shubay samarkiina lagu door ku salligay xishoodkii ilma saarin aabe sibi hooyadii tabay ablay ku soo karay silciyi muxuuciil u sabraa adduunyada balsa ma ay dhicin سميس الروح جعل أوجي سردة دتك وجو سرية سحر ليك كوريو نولتي سريسيو سلطنة دروك تيري سيد كان الوكري نولا شاسي داس لقاسي بالدنيا ده إفجود كالجسار سبيق سبك الدنيا ده الجسار سبيق أجانكا وحاجود كسارتي أدركي سماها جعل سحر ليك كوريو سوق وعرسول كان صلى الله عليه وسلم سيدا وحديثري دقن سمي إله با نبي جن كوريو ولقي عيد موسرين ولقي عيد موسرين سرق توج مو نقن سرقح ولقي مو فلين دقن سحن قف كي سوق دقن سحن قف كي سوق حسب مسيا آدمي سجون ما ساجى وحاط سبتات هلي. Principal, teachers, authorities, parents, and all other participants, I want to suggest here a brief theme about our Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Firstly, my points only focus on the history of our Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Muhammad was son of Abdullah, who was son of Abdul Muttalib, who was son of Hashim, so and so. Our Prophet was born in the city of Mecca, the year of the elephant, on Monday in 12th day, the month of the Rabiul Awwal. He was shown the mercy of the world and the mercy of the doomsday, and it still is. Our Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he had some children, and they were Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Fatima, Ruqayya, and Kulthum. Muhammad grew up to become a fine young man. He became known for his excellent manners, and because of the honesty in his conduct and dealings, he was referred to as Al-Sidqa, which means the trustful one, and Amin, which means the trustworthy one. As a youngest, Muhammad used to accompany his uncle on his business trips to Assyria. When the Messenger of Allah reached the age of 12, the journey with his uncle Abu Talib as far as Basra. A Christian monk named George saw him. They recognized him by description. He took side and said, he took his hand and said, "This is the chief of the world. Allah has sent him as mercy to the world." Abu Talib asked, "How do you know this?" He said, "We find his mentioned in our books." He asked Abu Talib to him his back fearing for his safety. As an adult, Muhammad works as trader between the city of Mecca and Damascus, and earned a great reputation in the process.
having heard of the reputation of Muhammad, Lady Khadija, one of the noblest of the Quraysh, on one occasion commissioned him to take charge of some of the trading business between the two cities. Lastly, some people refuse to be blessed to talk about these months in history of our Prophet. That's impossible. There is put saying that means the man who says that the Muslim people who came together can't talk about the history of the Prophet. He is like a man who needs proof that a day is a day or a night. That is ashgarato. sidoo kale agaasimaha qorsheynta degmada xasan mahdi geedi iyo weliba agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada Gurceel Said Cali Gamuure ayaa iyaguna hadal kooban ka soo jeediyay goobta. maamulaha iskuulka sheekhana Sheekh Cabdiraxmaan, macallimiinta, waalidiinta, ardada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, saakay waxaa farxad noo ah inaan joogno xaflad lagu xusayo dhalashada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waxaan ku jirnaa bishii uu nabiga dhashay. waxaad moodaa bishaan way ka duwan tahay bilaha kale. magaaladan waa laga dareemaa oo habeenkii markii la gaarana masaajidda dhan waa camiran yihiin. makarafoonada waxaa isleeyahay xaafadaha waa laga maqlaa. iskuullada markii la joogana iskuul walba maalin ayuu xuska iyo dhalashada xafladda lagu dhigayo ayuu qabtaa. madarasooyinka iyo dugsiyadana waa sidaas oo kale way ka socotaa. marka taasi waxay muujinaysaa dadweynaha islaamka ah khaasatan reer Gurceel meesha ay ka joogaan nabiga jacaylkiisa sallallahu alayhi wasallam. qof walbana intii taagtiisa ah ayuu nabiga weyneynayaa. qofkii luqad khudbad ingiriisi ku soo jeediya iyo qof carabi ku hadla iyo qof gabya iyo gabar baraanburta iyo sheekh wacdiye intaba qof walba intii uu awooday daaqadiisa ah ayuu ku muujinayaa xuska dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam. ardada waxa laga rabaa sida ay mar walba culimadu ku soo celceliyaan oo markii la wacdinayo la sheego nabiga jacaylkiisa ma ahan kaliya in xaflad inta la dhigo aan isu imaano kadibna meesha aan uga tagno ma ahan. waxa culimada inoo sheegayaan inaan qaadano ayaa jacaylka nabiga kamid ah. macallimiintaada iyo dadka wax ku barayo ixtiraamta ayaa diinta ma taqaanaa ay qayb ka tahay. sidaas daraadeed waxaan rabnaa nabiga jacaylkiisa inuu maalin iyo bil gaar ah nooga ekaano mar walba. salligiisa iyo ammaantiisa iyo weyneyntiisa inaan wadno nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa isleeyahay dadkii meeshaan ka hadli lahaa manihin oo laayiqu mihin culimadii yaa joogto oo dadka ma wacdi karno. abwaaniinna manihin oo gabayo iyo heesa hadda aan ku ammaano nooma diyaarsana. laakiin waa nala xusayo inaan meesha soo istaagna ayaan ma taqaanaa ku qasbanayn. waxaan leenahay reer Nuurul Iimaan ha joojinina oo xaflada intaan ka ballaaran sanad walba iyo bil walbaba u qabta nabiga dhalashadiisa sallallahu alayhi wasallam. waxaa waaye mawliidka rasuulka ninkaan marxabaynin aseen ku macaansan miyuu janno muudsan. mashaayikhda, agaasimayaasha, macallimiinta, waalidiinta iyo ardada dhammaan ka soo qaybgalayaasha, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaa farxad weyn ii ah oo run ahaantii aan la soo koobi karin maanta inaan ka soo qayb galo xaflad lagu weyneynayo dhalashadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam. run ahaantii qof walba oo garasho leh ama qof walba oo damiir lahaa fahmi kara xafladuhu yacni waa kala munaasabsan yihiin waana kala horeeyaan. aniga ka shaqsi ahaanteyda sida xafladaha lagu weyneynayo dhalashada nabiga, mashaayikhda iyo yacni ardada badanaa qur-aanka ka qalin jebinayso kale ilama sinna xafladaha kale oon ka qayb galayo. annaga afkeena ka agaasimo ahaan ama ka maamul ahaan waxaa ku hadla saaxiibkay Xasan Turki. ma rabo inaan sii badiyo hadduu ilaa yiraahdo. meel walba waxaan tegi doonaa insha Allah lagu xusayo dhalashada nabiga ama lagu weyneynayo hadduu ilaa yiraahdo. waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo hadduu ilaa yiraahdo. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Jimcaale oo kamid ahaa mashaayikhda lagu casuumay xafladan ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta xabiibkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee.
الحمد لله والشكر لله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وقدرة الله وعظمة الله وسلطان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام walaalyaal أولا إلaahay mahad u sugnaatay subxaanahu wa tacaala naga yeelay ummad muslimiin ah naga yeelay ummad nebigooda jecel calayhi الصalaaةu wasalaam naga yeelay kuwa mawaasimta iyo maalmaha nebigu calayhi الصalaaةu wasalaam uga duwan yihiin maalmaha kale ummad caynkaasa ilaah naga yeelay ayaa mahad oo dhani u sugnaatay haaniyan waxay mahadi u sugnaatay ummadda nebigooda weyneyneysa calayhi الصalaaةu wasalaam gartaan inay xaflado u sameeyaan al-ayaam almuxamadiyaha inay uga duwnaato maalmaha kaleeto ardada iyo mucalimiinta iyo waalidiinta iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa arrintaasay sameeyeen mahad saddexaad waxaan u jeedinaynaa marti sharafka iyo madaxda iyo maamulka degmada iyo ragga ka soo qayb galay ihtimaamka gaarkaana siiyey xafladda nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam aada iyo aad ay u mahadsan yihiin waxa iyaga ugu horeeyaan ma ahan inay madaxdu maamuusto aada iyo aad ay u mudan tahay ixtifaalka nebigu calayhi الصalaaةu wasalaam maxaa yeelay madaxdii islaamka xilligii ixtifaalka haa'ilka xooga badan uu soo bilowday madaxdii xilligaa joogtay aaday u ihtimaam u sii jireen dhaqaalo fara badan iyo waqti fara badanna way geli jireen ayagana haddii intay awoodaan ay geliyaan ama waqtiga ama dhaqaalaha aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin axsanuljazana allah ku amaalmariyo qof walba nebigiisa siduu qalbiga ugu hayo intuu kula eg yahay ayuu waqti iyo adduunyaba huri doonaa intaa mahad celinta haddaan uga soo laabto waxaan ku jirnaa bishii nebiga la dhalay calayhi الصalaaةu wasalaam sidan aayaddan ku furfurtaba ay sheegtay ilaahay wuxuu noo sheegay inuu nebigu yahay raxmad ilaahayaa noo sheegay subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi moxamedow kuma aanaan soo dirin ilaa adoo raxmad iyo naxariis ah mooyaane oo caalamiinta raxmad u ah un baan ku dirnay aayaddaa waxay noo tilmaantay nebigu inuu raxmad ahaa oo caalamka caalamiinta dhammaantood ou raxmad u ahay ayaa aayadda qur-aanka ilaahay noogu sheegay aayad kaleeto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi oo hadaayato ardaygii qur-aanka akrinaya qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay wuxuu aayaddaa ku sheegay qul bifadli illaah waxaad tiraa nebi maxamedow fadliga ilaahay wa biraxmatihi ilaahay raxmaddiisa falyafraxuu ha ku farxaan ummadda muxamediyada u sheegaa layidhi ilaahay fadligiisa iyo ilaahay raxmaddiisa ha ku farxaan fadliga ilaahay oo lagu farxayaa waa alcilm alqur'aan walxadiid walfiqh culumta kala duwan ee mataqaanaa waxaa weeye diiniga ah weeyaan qul bifadli illaah ilaahay fadligiisa wa biraxmatihi ilaahay raxmaddiisa raxmadda ilaahay way tiro badan tahay waxaa ka mida raxmadda ilaahay bal ugu weyn nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam oo inuu raxmad yahay ilaahay noo sheegay aayaddii hadda aytaan akrinaynay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin raxmad maadaama nebiga ilaahay ku tilmaama raxmad inuu yahay
hadda qur'aanka yufasiru bacduhu bacdan qur'aanka qaarkiis qaarka kale u fasiraya weliba waxaa tafaasiirtu waxaa weeyaan wuxuu leeyahay tafsiirku wuxuu leeyahay aqsaam ayuu leeyahay qismiga ugu horeeya waa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan qur'aanka in la fasiro lagu fasiro qur'aan kale ama waxaa ku xiga tafsiiru lqur'aani bilxadiid qur'aanka in la fasiro oo xadiidka lagu fasiro guud ahaan waxaa la isku yihahdaa tafsiiru lqur'aani bilma'huur qur'aanka in lagu fasiro wax ma'huur aho ama aayad qur'aana ama xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nebiga inuu raxmad yahay ilaahyaa noo sheegay subxaanahu wa tacaala raxmadda inaan ku faraxnona ilaahyaana amray ilaahyaana amray inaan ku faraxno raxmadda idan haddiisan nebigu raxmadda lagu farxaya uusan ahayn raxmadda lagu farxaya maxay tahay raxmad kaloo lagu farxo nebiga ka weyn miyaa jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu noo nimceeyo roobna siiyo waa raxmad waa ku faraxnaa waxbaa ka sii weyn caafimaad iyo maal iyo barwaaqo iyo haddii ilaahay ku siiye waa raxmad waxbaa ka sii weyn nacmo kastoo ilaahay ku siiye nacma ka sii weyn soo maa nacmadee ka weyn oo lagu farxi lahaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nacmo lagu farxi lahaa nebi maxamed ka weyn miyaa jirta waa may idan ilaahay muxuuna amray falyafraxuu ha ku farxaan ilaahay fadligiisa ilaahay raxmaddiisa falyafraxuu ha ku farxaana ilaahayna yidhi subxaanahu wa tacaala amara nala saaray raxmadda ilahay inaan ku farxno raxmad aan nebiga ahayn ama nebiga ka weynoo lagu farxayaa ma jirtaba isla nebigu asagaa yidhi inamaa yaa ayuha annaas dadkii u naadi yaa ayuha annaas oy dadow inamaa ana raxmatu muhdaah anugu waxaan ahay oo keliya raxmad ilaahay soo hadiyeeyey raxmad laydiin soo hadiyeeyey oo ilaahay xaggiisa laynkaga soo hadiyeeyey baan ahay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam mar haddii qur-aanku noo sheegay nebigu inuu naxariis yahay raxmad yahay nebiga qudhiisu noo sheegay nebigu inuu raxmad yahay ilaahayna na amray raxmadda inaan ku faraxno daliilka intaa gadaashooda la goobaya muxuu noqon karaa qofka intaasoo qur'aan akrinaya ama xadiidka akrinaya ee haddana daliil kale goobaya waa qof aan daliil rabin wey waa qof aan daliil rabin in mawlid nebiga dhalashadiisa in lagu farxaa waxa weeyaan waa wax lagu farxi lahayo ka weyn mama jiraan haddeer ereygan mawlid markii la cabiro kelimatulmawlid culammadu waxay ku sheegaan luqada 3 shay ayay tusidaa horta mawlid mahana waa mawlid mawlid markay tahay waxaa la dhahaa waa masdarun miimi waa masdarun miimiyun masdar miimiya oo tusinaya dhalasho un waxaa kale noqotaa darfu zamaan waqti dhalasho waxaa kale noqotaa darfulmakaan makaankii lagu dhashay saddexdaasoo ereygan mawlida uu faa'iideynayaa haddii la yidhaha mawlidka nebigu maba jiraba ma waxaan jirin nebigu inuu dhashay oo uu ku dhashay waktiga la yidhaahdo wakti inuu dhashay miyaan jirin bishan rabiicul awal inuu dhashay miyaan jirin sanadkii caamulfiil inuu dhashay miyaan jirin haddii waktiga nebigu dhashay maba jiro wakti dhalashada la yidhaah waxay diidan yihiin ma waktiga nebiga la dhalaya calayhi الsalaatu wasalaam waxay diidan yihiin ma makaanka nebigu ku dhashaya oo makal mukarama ah waxay diidan yihiin ma dhalashada lafteeda nebiga calayhi الsalaatu wasalaam in la dhalay ah oo nebiga haddii in la dhalayba la inkiro culamadu waxay leeyiin diinta looga baxaya maxaa yeelay nebiga dhalashadiisa la inkira maxaa ka imaanaya nebiga qudhiisa la inkiraa ka imaanaysa markaasna qofku kaafir uu ku noqonaya kelimadan mawlid intaasay ay ku fadhisaa macnaheeda luqa ahaan la fiiriyo intaasay ku fadhisaa intaas midaan diidi karna ma ku jiraa in nebiga la dhalay ma inkiri karnaa inuu maka ku dhashana ma inkiri karnaa in zamankan oo rabiicul awal la dhalay ma la diidi karaa may khilaaf waa jijiraa laakiin khilaaf xoog badan maaha sida mashhuurka muctamadka waxaa weeyaan nebigu in la dhalay rabiicul awal waxaa laba waqtiya ugu xoog badanoo waxay dhahaan 8 dhashay qolada kasi ugu xooga badan waxay leeyihiin waxu dhashay 12 waxaan marnaba khilaaf ku jirin nebiga itniin la dhalay calayhi الsalaatu wasalaam
ilaa saaka isniin soo maa nebiga isniin in la dhalay khilaafba kuma jiro iyada. maxamed sheekh cismaan diini oo ka mid ah aas-aasayaasha iskuulkan iyo weliba axmed naasir maxamed xaaji oo ku hadlayay afka maamulka iskuulka ayaa soo xiray munaasabadda. awalan waxaan salaamay madaxda maamulka degmada ugu horeeyo agaasimaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha qorsheynta sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamuud jumcaale oo runtii ka mid ah mashaayikhda beledka, macallimiinta iskuulka, waalidiinta, ardayda, marti sharafka qaybaheeda kala gedisan dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan ka bacdi runtii warma harin waa alla wixii khudbooyinaya waa la soo dhameeyey waana la soo gabagabeeyey. keliya waxaan rabaa inaan mahadcelinta iyo bogaadintayda aan ku ekeeyo inaan maaragtay aan ku faraxsannahay dhalashada nabigeena moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh. aana uga mahad celina runtii macallimiinta iyo guddiga iyo qabanqaabayaasha iskuulka iyagoo matalaya dhigay xafladdan juhdi badan iyo waqti badanna runtii ku bixiyey. si gaara waxaan ugu mahad celinayaa guddiga qabanqaabada maaragtay ixtifaalka oo isugu jira gabdho iyo wiilalba oo runtii muujiyey maqaam weyn iyo bilic sarraysa. waxaan leenaha mahadi ayn ka gaarta runtii ilaahayna haynka ajar siiyo, nebiga jacaylkiisa iyo fadligiisana allah nagu wada dhiibaano. runtii ixtifaalka mawlidku ma ahan mid maanta bilaaw ah oo maanta la bilaabayo, waa mid soo jireen ah sidii mashaayikhdu u sheegtay. waana ku faraxsanna runtii waana bogaadinaynaa xafladda iyo ikhtitaamkeedana waa bogaadinaynaa runtii. keliya waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya afka boodka iskuulka inaan runtii beryahana runtii aan imaanin iskuulka inaan ka mahad celino qaabka wax u socdaan iyo nidaamka oo dhan waana bogaadinaynaa runtii. iskuulka marxalado badan uu soo maray saakay waxaad ogtihiin marxaladda uu maraayo. waxaad runtii nasiib ay u hesheen iskuulka nuurul imaan oo u helay macallimiintii ugu aktifsanaay ugu macno weynaa in ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare galmudug ay runtii ay keentay iskuulkana si rasmi ay ula wareegtay. macnaha iskuulka la wareegidiisuna waxa uu ku soo kordhayaa heerkii uu joogay inuu sare u qaadma ayaan rajaynaynaa runtii. waxaan rabnaa inaan mahadcelin keliya soo jeedino haddaan nahay qaybta maamulka. waxaan u mahadcelinaynaa marka koowaad allah subxaana wa tacaala oo noo suurto geliyey inaan isugu nimaano ixtifaalka mawlidka nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. dad badan oo soomaali nala ah oo da-yar iyo dad waaweyn iyo intaba isugu jirta ayaan nasiib u yeelanin inay istaagaan meel lagu xusay rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. qof kastaayo waxaa waajib ku ah inuu ku mahdiyo ilaahay subxaana wa tacaala oo kuu suurtogeliyey. awood adigu aad leedahay ama xeelad aad leedahay kuguma aysa suurtogelin inaad ka qayb gasho xaflad noocaan ah oo xabiibkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam loogu ixtifaalayo. marka xigta waxaan u mahad celinaynaa ardadii soo qaban qaabiday xafladdan heerkeedu sarreeyo. mahadcelinta sidoo kale waxaa ku jira waalidiinta nagala soo qayb gashay codsiga naga aqbashay. mawliidka sidiisaba waa in laga sheekeeyo rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam, siirada rasuulka in laysku akriyo, lagu ababiyo da-yarta soo koraysa. waxyaabihii siirada marka laga hadlaayo ma ahan in yacni waxyaabo kale laga sheekeynaye waa habkii adduunkan hadda aan saarannahay nabigeena moxamed sal alla alay slam oo ugu noolaa ayaa la rabaa inaan annaguna ku dayanno.